madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku magacaabay guddi baadhiseed oo madax bannaan oo ka soo warbixisa komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, markuu arkay qodobka 13aad farqadiisa 1 iyo 2 iyo qodobka 15aad farqadiisa 1 iyo 2 ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer nambar 19/2020, markuu arkay qoraalka ay sumadiisu ku taariikhaysan tahay bishii Afraad 25-keeda 2022, ujeedadiisuna ay tahay codsi guddi baadhiseed, markuu arkay qoraalka ay sumadiisu ku taariikhaysan tahay bishii Afraad 27-keedii sanadka 2022, ujeedadiisuna ay tahay isbeddel lagu sameeyo hoggaanka komishanka doorashooyinka qaranka, markuu arkay warbixinta sumadeedu ku taariikhaysan tahay bisha 5-teeda 2022 kana soo baxday xafiiska antidhowraha guud ee qaranka, ujeedadiisuna tahay soo gudbin warbixin baadhiseed, markuu arkay warbixinta sumadeedu ay ku taariikhaysan tahay bisha 5-teeda 2022 kana soo baxday xafiiska xisaabiyaha guud, ujeedadiisuna tahay warbixinta xisaab xidhka komishanka doorashooyinka qaranka, markuu arkay muhiimadda uu komishanka doorashooyinka qaranka u leeyahay hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka iyo hirgelinta doorasho xor iyo xalaal ah, markuu arkay khilaafka maamul iyo maaliyadeed ee soo kala dhex galay xubnaha komishanka uu caqabad ku noqon karo xilgudashada waajibaadka iyo howlaha shaqo ee komishanka doorashooyinka qaranka, markuu helay madaxweynuhu talabixinta sharci ee garyaqaanka guud iyo xeerlaalyaha guud ee qaranka, waxa uu go'aamiyey inuu magacaabo xubnaha magacyadoodu hoos ku xusan yihiin inay noqdaan guddi baadhiseed oo madax bannaan oo ka soo warbixisa komishanka doorashooyinka qaranka si waafaqsan qodobka 15aad farqadiisa 1 iyo 2 ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer nambar 19/2020. xubnahaasi ayaa kala ahaa Maxamed Jaamac Cabdi Gudoomiye, Farxaan Maxamed Cali xubin, Siciid Xasan Habane xubin, Axmed Salebaan Jaamac xubin, Bashiir Cabdi Xariir xubin. Madaxweynuhu waxa uu sheegay inay guddidani baadhitaan ay ku soo samayn doonaan arrimaha ay ka mid yihiin nidaamka maamulka iyo maaliyadda ee xubnaha komishanka doorashooyinka, nidaamka iibka iyo qandaraasyada adeegyada iyo agabka komishanka, nidaamka maamulka iyo diiwaangelinta hantida raagtay ee komishanka. Wareegtadaasi ayaa waxaa soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland